ay ku tartamayeen musharaxiinta kale ah Mahad Cabdalla Cawad iyo Xasan Maxamed Nuur waxa ay ku kala codadka ay kala heleen kala yihiin musharax Mahad Cabdalla Cawad oo ku guuleystay 50 cod halka musharax Xasan Maxamed Nuur oo helay 1 cod sidaas darteed natiijadii maanta doorashada waxaa ku guuleystay oo hordhaca ah musharax Mahad Cabdalla Cawad waxaa sharaf ii ah inaan isku soo taagay mar labaad iyo mar saddexaad kursiga deegaan doorashada aan ka soo jeedo oo kalsooni ballaaran ay ergada sharafta leh ay igu siiyeen waa uga mahad celinayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan sidoo kale u mahad celinayaa walaalahay oo waxa weeye ambaasadorka oo aan mar labaad u mahad celinayo sida uu igu tanaasulay iyo walaalkay Xasan Maxamed Nuur oo ila tartamay شريف محمد سيدي خالد معو عبد القادر waxaanu ku tartamaya Shariif Maxamed Sayidi oo helay cod 21 iyo Khalid Maco Abdulqaadir oo helay cod 29 runtii waxa waa process cusub oo hadda dalka macna u bilowday processkaas oo ah kun talaabo koobi ka bilaabataa Soomaaliya saanto talaabadii koowaad ay qaaday oo ah ujeedka ama socodka maxaan ku raadinaa dimuqraasiyada marka wadada waa dheer tahay waxaana xallin kara Soomaalida kaliya xallin karto problemka meesha yaalo amni iyo dhaqaale iyo nooc doon horumarba Soomaaliya sameyn karto Soomaaliya go'an tahay maartay inay ayada isu tashato marka waxaan rajeynaa maartay in aan ka qayb qaato wacyigelinta ummadayda maartay aan ku wacyigeliyo koow asaaska inuu yahay maartay in nabad la helo la abuuro maxaan ku heshiis ummadan midnimo ku wada nooleed ummad taariikhda dib loogu soo noqdo in la xusuusiyo maartay siday maartay isticmaalkii isaga horeysay oo midnimada ahaa maantana culayska saaran iyo dhibta saaran waxay isaga horeyn kartaa kaliya midnimada cid kale banaanka wax ugu keeni karta malaha inay ayada isu tashato way maanta waa maalin aad u weyn oo kamid ah maalmihii badnaa ee ka soo bilowday bishii July oo aanu bilownay geedi socodka doorashooyinka iyadoo la soo gaaray xilli gabagaba ah inta badan gobolada doorashooyinka lagu qabanayay deegaan doorashooyinka xarumaha dawlad goboleedyada oo ay maanta ay gaartay in tirada golaha shacabka ee la doortay ay gaarayaan 3 dalool oo 2 dalool oo ah tira ku filan in doorashooyin tira ku filan in baarlamaanku uu ku fadhiisan karo inkastoo ay noo dhiman yihiin gobolada waqooyi ee Soomaaliya Somaliland. All has gone on well. There is no incident of any security threat which we have experienced or we have registered, and everything is fine. And I think the first election is over and they have declared the winner safely. And I hope everything will go well for the whole day. haddartan waxa aragtaa maanta inay noo bilaabatay doorashooyinka gobolka Banaadir iyo doorashooyinka oo doorashooyinkaas oo nooga bilowday xarunta gaadiidka booliska sida muuqatana maanta ayay koow noo tahay waxaana jeclahay waxay noogu bilaabatay si nabada waxaana jeclahay inay noogu dhamaato si nabada waana u soo diyaar garownay dad u tababaran hawshaasna waa wadanaa diyaarna waxaan u nahay inaan ka hortagno cid kasta oo faragelinaysa hawshan
amniga dalkana Soomaaliya maanta aad u fiicnaa waa deganaa wax dhibaato dhacday ma jiro aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay sida jawigu u dhacay waxaana ma sha Allah lagu farxaa